saaxiibayaal ku soo dhowaada qaybtii labaad ee filimkeenna. qaybtii koowaadna waxay noo joogtay wasiirka oo kishin u sheegay shiishiyoon inuu ku soo wajahan yahay magaaladan. halkaanna wasiirka hadda wuxuu ka bilaabay inuu ka sheekeeyo qofka uu yahay shiishiyoon, wuxuuna sheegay dhowr sano ka hor in dagaal lagu qabtay asaga. halkaana shiishiyoon wuxuu ka dagaalamayay asagoo taageeraya dowladda. dagaalka kadibna shiishiyoon wuxuu ogaaday awoodda uu leeyahay asaga, markaana wuxuu khiyaanay dowladda. intaa dabadeedna dowladda ayaa qabatay asaga, maadaama uu dowladda khiyaanana waxaa la rabay in la gubo, laakiin maalintaa baraf xooggan ayaa da'ayay, sidaa darteedna wuu badbaaday. intaa kadibna wuxuu dhistay koox asaga u gaara, ujeeddadiisana waxay ahayd inuu soo afjaro dowladda, kadibna wuxuu ku haminaya inuu xukumo dhammaan dalka Jabaan. haddana wasiirkan wuxuu rabay in kishin uu dowladda ka caawiyo sidii loo dili lahaa shiishiyoon, sababtoo ah kishin wuxuu ahaa dagaalyahan geesiya sida shiishiyoon, sidoo kalena wuxuu ahaa geesi kula tartami kara fagaaraha dagaalka shiishiyoon. balse kishin ayaa meeshaan isaga tegay kadib markuu iska diiday in arrintaanu ka caawiyo dowladda. muddo kadibna wasiirka asagoo gaarigiisa wata wuxuu aaday magaalo kale. intuu waddada maraayana waxaa isaga u yimi shiishiyoon iyo gacanyarihiisa, kuwaasoo wata xoogaa ciidana. isla markiina waxay bilaabeen inay wasiirka cayrsadaan. ninkaana markuu gaariga soo koray wuxuu ku yidhi, wakhti ayaa isaga lumisay inuu ila dagaalo kishin, mar dhowna waan soo afjari doonaa asaga. aniguna hubaashii waxaan ku fikirayaa inaan qabsado dalka Jabaan. asagoo sidaa kule ayuuna hadda meesha ku dilay wasiirka. meel kalena kishin hadda wuxuu ku fikiraya inuu caawiyo dadkiisa, wuxuuna rabay inuu aado wasiirka si uu ula kulmo mar kale, balse wuu soo daahay hadda, sababtoo ah wuxuu ogaaday wasiirka in lagu dhex dilay gaari faraskiisa. qofka wasiirka dilana wuxuu ahaa kaaliyaha gaarka ee shiishiyoon. intaa kadibna meesha waxaa isugu yimi dad badan. halkan dadka joogana waxaa ka mid ahaa kaaliyaha gaarka ee shiishiyoon. goobtaanna wuxuu ugu hanjabay kishin, asagoo u sheegaya inuu soo afjari doono mar dhow. ogaanshaha arrintaanna kishin wuxuu ka fahmay in ciyaartan uu ka dambeeyo shiishiyoon, sidoo kalena waxay ka dhigan tahay inuu asaga wasiirka dilay. isla markiina kishin hadda wuxuu aaday xafiiska wasiirka. intaa kadibna taliyaha meesha kishin wuxuu ku tusay meydka askari uu xalay dilay shiishiyoon. arrintaanna xanuun badan ayuu ku dareemay kishin, sidoo kalena hadda wuxuu arkay qoyska askariga oo aad u murugaysan. markuu dhibaatooyinkan oo dhan uu hadda arkana wuxuu go'aansaday inuu dilo shiishiyoon, sidaa darteedna hadda wuxuu diyaar u ahaa inuu dib ugu laabto magaaladiisii Kyoto asagoo isaga tegaya meeshaan. meel kalena keerigu markay guriga joogtay hadda waxay ogaatay arrintan oo dhan, isla markiina waxay isku dayday inay celiso saaxiibkeed, laakiin kishin wuxuu iska diiday arrinta. meeshaan ayuuna isaga tegay hadda. wax yar kadibna halkan waxaa yimi gacanyaraha shiishiyoon. dadkaanna wuxuu weydiiyey meesha uu aaday kishin, maadaama uu meeshan ka waayay asagana wuxuu bilaabay inuu laayo kishin saaxiibadii. laakiin Megumi ayaa isla wakhtigaaba meeshan timi, saaxiibadeedna waxay ka badbaadisay ninka. dhinaca kalena shiishiyoon hadda wuxuu ogaaday arrintan oo dhan, wuxuuna kaloo ogaaday ninka inuu go'aan ku gaaray inuu dilo asaga. meel kalena maadaama hadda habeen la gaaray, kishin wuxuu istaagay meeshaas si uu caawa u seexdo halkan. laakiin intuu meeshaa joogay gabar ayaa seeftiisii ka xaday, kadibna waxay rabtay inay isaga baxsato meeshaan, balse kishin ayaa isla wakhtigaaba ku soo kacay ayada, wuxuuna bilaabay in seeftiisa uu dib uga qaato gabadha asagoo la dagaalamaya. intuu dagaalkan socdana wiil ka mid a dadka deegaanka ayaa meeshaan soo gaaray. ilmahaana asagoo oynaya wuxuu caawinaad weydiista ayaga, wuxuuna ku yidhi ii badbaadiya walaalkay. isla markiina gabadha iyo kishin waxay raaceen wiilka. halkaanna waxaan ka ogaanaynaa wiilkan walaalkii inuu yahay askari boolisa. waardiyaha gaarka ee shiishiyoon ayaana dhibaato u geystay ninka, kadibna halkan wuxuu oga tegay asagoo garaaba. intaa dabadeedna labadooda waxay aadeen goobtii uu joogay askariga. intaa kadibna askarigan labadooda wuxuu ka codsaday inay badbaadiyaan dadka tuulada, isla markiina halkaa ayuu ku dhintay asaga. haddana labadooda waxay diyaar u ahaayeen wiilka yar inay u raacaan tuuladiisa. markay meeshaa tageenna waaga ayaa baryay hadda. meeshaanna waxay ka ogaadeen waalidiinta wiilka yar in horay loogu dilay halkan. maydadkooda oo la daldalana hadda waxaa laga soo laalaadiyey geed meeshan ku yaala, sidoo kalena waxaa la burburiyey tuuladan oo dhan. dhinaca kalena nimanka shiishiyoon hadda waxay soo weerareen kishin. markay meeshaa yimaadeenna isku hor imaad ayaa meeshan ka dhacay. dagaalkan intuu socdana wuxuu soo xasuustay dhaartii uu horay u qaaday. goobtan ayuuna isaga tegay asagoo ka tagaya nimankan oo noolnool. haddana kishin gabadhii la socotay iyo wiilka yar wuxuu ku amray inay gubaan burcadda tuuladan joogto oo dhan. sidoo kalena dadkii tuuladan degganaa ayaa hadda yimi halkan. goobtaanna waxay ka ogaadeen ninkan inuu ka sii daran yahay shiishiyoon, marba hadduu ku talinayo in la gubo dadkan, sidoo kalena uu burburin doono inta yar ee ka hartay tuuladooda. dhinaca kalena gacanyaraha gaarka ee shiishiyoon ayaa hadda yimi meeshan. haddana kishin wuxuu uga mahad celiyay asagoo keligii ah inuu laayay dad badan. intaa kadibna meeshaan ninkan wuxuu ka fahmay kishin inuusan cid kale ahayn, balse uu yahay isla dilaagii Badushaay, kaasoo hadda noqday dagaalyahan geesi ah. intaa dabadeedna
kaaliyaha gaarka ee Shishiyon Kishin wuxuu u sheegay waxa adiga ku casuumay Shishiyon haddii aadan u tagin asagana arrinta beddelkeeda waxaa la layn doonaa dadka tuulada oo dhan haddana Kishin wuxuu ku qasbanaa inuu meesha aado markuu meesha tagana Shishiyon wuxuu asaga u sheegay inuusan doonin inay dadka tabarta daran ay ku sii noolaadaan adduunka sidaa darteedna hadda anigu waxaan diyaar u ahay inaan laayo dadka masaakiinta oo dhan intaa dabadeedna dalka Japan waxaan u bedeli doonaa waddan awood badan markaan xukunka la wareego kadib Kishinna markuu arrintaa maqlay wuxuu ka codsaday inuu la dagaalo asaga laakiin Shishiyon ayaa asaga u sheegay marka hore inuu la dagaalo adeegihiisa gaarka isla waqtigaana seeftiisa ayuu la soo baxay Kishin haddana asagu wuxuu rabay inuu isaga tago magaaladan laakiin goobta dagaal xoogan ayaa ku dhex maray labadooda intuu dagaalkan socdana seeftii ayaa ka jabtay Kishin gacanyaraha Shishiyonna markuu arrintan arkay wuxuu rabay inuu halkaa ku soo afjaro ninkan intaa dabadeedna Kishin wuxuu arkay dadkii tuulada oo wax yar kadib meeshan ku soo laabtay hadda dadka tuuladana ciidamada Shishiyon hadda waxay ku qasbeen inay dilaan cuniga yar ayagoo hadalka adeecayana hadda waxay ogolaadeen inay dilaan asaga meel kalena Kishin hadda wuxuu joojiyay arrinta markuu goobta gaaray kadib Shishiyonna markuu arrinta arkay wuxuu qalloocinayaa seeftii adkeed ee Kishin isla markaana wuxuu u tagay ninka hubka ama seefaha sameeya markuu meeshan yimina Shishiyon ilaaliyihiisa gaarka wuxuu ku amray inuu ugu yeero 10 dagaalyahan nimankaana waxay ahaayeen gacan ku dhiiglayaasha ugu waaweyn dalka Japan sababtoo ah Shishiyon hadda wuxuu rabay inuu qorsheeyo qaabkii ay nimanka ku imaan lahaayeen halkan intaa kadibna Kishin saaxiibkii markuu arrintan ogaaday wuxuu aaday meesha si uu caawiyo asaga laakiin wuu dhaawacnaa asaga haddana si buuxda umuusan soo kabsan isla waqtigaana Megumi waxay asaga siisay daawo xoog leh meel kalena hadda waxaan aragnaa Kishin oo faraxsan sababtoo ah waxa asaga u timid dagaalyahanada ninja intaa kadibna labadooda saaxiibo ayay noqdeen isla markiina ninja Kishin waxay keentay meel kale habeenkaana meesha ayay ku wada hoydeen labadooda meeshaana nin wadaada ayaa maamulayay ninkaana hadda wuxuu sheegay Kishin inuusan cid kale ahayn balse uu yahay dagaalyahankii geesiga ahaa ee Badushay ninkaana wuxuu raadinayay Shishiyo sababtoo ah wuxuu rabay inuu dilo asaga waayo dad badan ayuu horay u dhibaateeyay intaa kadibna maamulaha goobtan Kishin wuxuu u sheegay asaga xitaa inuu dagaalyahan yahay dawladda cusub ayaana iga soo afjartay dhammaan howlihii aan waday haddana waxaan ku dadaalayaa si aan wax walba dib ugu hagaajiyo meeshaana sidoo kale waxaa horay u joogay kaaliyaha gaarka ah ee Shishiyo kaasoo hadda isticmaalaya awoodiisa laakiin boqorka gobolkan haysta ma uusan rabin inuu meeshan sii joogo sababtoo ah waxaa laga yaabaa meeshan inuu dagaal ku dhex maro dagaalyahanadiisa iyo cadowga maxaa yeelay dagaalyahanadiisa aad baa looga tixgelin jiray meeshan maqaam sare ayaana la gaarsiin jiray ayaga dawladduna markay arrintan aragtay waxay qaado tallaabo ay ku leynayso dhammaan dagaalyahanada ninja si lama filaan ana Shishiyo raggiisii ayaa soo weeraray hadda halkaana hadda waxay ku laayeen qaar badan oo ka mid ah dagaalyahanada magaaladan intaa kadibna Shishiyo raggiisa waxay go'aansadeen inay nabad heli doonaan markay dilaan dagaalyahanka weyn ee Kishin dunidana meeshan waxay ka ogaan kartaa ninja inaysan wax tabara lahayn marka loo eego dagaalyahanada ay ishaayaan Kishinna meeshan wuxuu ka sheegay inuu halkan u yimi inuu dilo Shishiyo sababtoo ah ninka dad badan ayuu sabab la'aan u laayay intaa dabadeedna dagaalyahanada ninja waxay go'aansadeen inay ka garab dagaalamaan oo ay caawiyaan Kishin intaa kadibna Kishin asagoo seeftiisa tusaayo wuxuu yidhi seeftaydii awoodda badnayd way iga jabtay haddana wuxuu codsanaya in la siiyo seef cusub dhinaca kalena Shishiyo iyo 10kiisii gacan ku dhiigla hadda isku meel ayay wada joogeen sidoo kalena waxay ogaadeen magaaladan inuu soo galay Kishin ninkaana hadda wuxuu raadinayay seef cusub meeshaana Shishiyo wuxuu ka fahmay Kishin inuu imaan doono meesha lagu sameeyo seefaha si uu u helo seef cusub halkaana waxaan ka ogaanaynaa ninka seefaha sameeya ee meeshan joogi jiray in mar hore ay dileen Shishiyon iyo raggiisa haddana Kishin wuxuu u tagay wiilka uu dhalay ninka wuxuuna ka codsaday inuu seef u sameeyo asaga laakiin wiilkan meeshan ayuu isaga tagay halkaana Kishin asna goobtan ayuu isaga tagay muddo ka bacdina wiilka waxa afduubtay askarta Shishiyon meel kalena dadku dagaalyahanada waxay ka codsadeen inay meesha aadaan sidoo kalena ay soo badbaadiyaan Kishin halkaana Kishin wuxuu ka sheegay inuu u baahan yahay seef si uu la dagaalamo cadowga markuu hadda seef cusub helana wuxuu aaday meeshii ay joogeen dagaalyahanada Shishiyo goobtaana waxay ku haysteen wiilkii ay afduubteen kaasoo uu dhalay garyaqaanka haddana ujeedadiisa waxay ahayd inuu ka badbaadiyo wiilka laakiin Shishiyo raggiisa hadda waxay isku khilaafeen arrinta wiilkan sababta darteedna ayaga dhexdooda goobta waxa ku dhex maray dagaal balse dagaalkan si lama filaana waxa ugu soo biiray Kishin asaguna hadda wuxuu u muuqday inuu guuldareysanayo sababtoo ah wax seefa ma uusan sidan asaga markuu arrintan arkana wuxuu aaday goob kale si uu u soo qaato seeftii ugu dambeysay ee dagaalyahanka intaa kadibna asagoo seefta wata hadda dagaal adag ayaa meeshan ka bilowday Kishinna wuxuu jabiyay dagaalyahankii gacanyaraha u ahaa Shishiyo asagoo la kaashanaya seeftan haddana markuu seeftan fiiriyay wuxuu ogaaday
seeftan inay tahay tii school uu tuuladan uga badbaadiyo Shishiyon wax yar kadibna dagaalku markuu dhamaaday meeshan waxaa yimi booliska halkaana waxay ka kaxeeyeen gacanyaraha Shishiyon markay xirxireen sidoo kalena meeshan waxaa joogay Balaadi ilmihiisa meel kale oo magaaladaana hadda waxaa yimi Kishin saaxiibkii haddana Kishin wuxuu eegayay seeftan si uu wax badan uga ogaado ayada inta dabadeedna dagaalyahankii kale ayaa asaga u sheegay seeftan inay tahay mid qadiimi ah oo aad u awood badan meel kalena Shishiyon hadda wuxuu isku diyaarinayaa inuu soo weeraro ayaga haddana warkaa wuxuu gaaray askartii joogtay saldhigga booliska waxaana ayaga lagu wargeliyay in magaalada oo dhan birita gebi ahaanteedba la gubi doono haddana warkan sidoo kale waxaa helay ninkii lahaa hoteelkii ay ku nooleed Ninja isla markiina ninkaa wuxuu bilaabay inuu isaga guuro magaaladan dhammaan booliska iyo dagaalyahanada kalena hadda waxay isku diyaariyeen dagaalka Keru iyo saaxiibkeed Kishinna hadda waxay go'aansadeen inay ka qayb qaataan dagaalkan dhinaca kalena Shishiyon dagaalyahanadiisa hadda wuxuu ku amray in magaalada oo dhan ay dab qabasiiyaan isla markiina waxay bilaabeen inay bololay ridaan ayagoo sidaa ku gubaya magaalada nimanka Shishiyonna hadda waxay dab ka kiciyeen magaalada oo dhan wax yar kadibna boolisku waxay bilaabeen inay rasaas ku ridaan burcadda goobtaana hadda waxaa ka bilowday dagaal u dhaxeeya ayaga wuxuuna asaga u sheegay si geesinimo leh inuu uga hortagi doono cadowga meel kalena wadaadka hadda wuxuu ku jiray gurigiisa isla markiina goobtan waxaa yimi mid ka mid ah ciidamada Shishiyon labadoodana dagaal ayaa meesha ku dhex maray hadda dhinaca kalena dagaalyahanadii gabadha ahayd ayaa hadda timid halkan isla markiina indhaheeda waxay ku aragtay askarigii Shishiyon oo hadda meeshan ku dilaya wadaadka meel kalena Kishin hadda wuxuu gaaray goobtii uu joogay Shishiyon kor ayuuna kala socday asaga intuu baacsanaya ninkaana wuxuu gaaray meel cidla isla waqtigaana goobtan waxaa yimi ciidamada Shishiyon Kishin iyo ciidamadii la socdana waxay ku guuleysteen dagaalka markii fooda la isdaray si fudud ayayna ayaga uga adkaadeen Shishiyon iyo ciidankiisa laakiin taliyaha booliska iyo Kishin hadda waxay dareemeen inay wax qaldan yihiin sababtoo ah si fudud ayay ku heleen guushan hadduu Shishiyon uu dhab ahaantii uu doonayo inuu gubo magaaladaana wuxuu soo kaxaysan lahaa 10kiisa dagaalyahan uu ku dhaarto taana ma aysan dhicin hadda dhab ahaantiina arrintan waxay ahayd dabin la doonayo in meeshan lagu keeno Kishin inta dabadeedna meeshan waxay ku arkeen Keru oo hadda afdubtay gacanyaraha Shishiyon Kishinna markuu arrintan ogaaday wuxuu bilaabay inuu weeraro ninka Shishiyonna bartilmaameedkiisa xiga waxay ahayd Tokyo haddana asaga iyo raggiisa waxay ku dadaalayeen siday u dumin lahaayeen magaalada meel kalena Shishiyon hadda sida iska cad askartiisa wuxuu ku amray inay burburiyaan magaalada Tokyo oo dhan ayagoo u adeegsanaya bambooyin qarxaya haddana Kishin wuxuu aaday meeshaas si uu u soo dilo Shishiyon sidoo kalena intuu meesha u socday wuxuu wadada ku arkay gacanyarihii Shishiyon ninkaana wuxuu horay u afduubtay Keru intaa kadibna ninka asagoo dabagalaya labadooda waxay gaareen markabkii uu joogay Shishiyon markuu meesha tagana wuxuu arkay saaxiibtii oo halkan ku xiran sidoo kalena la doonayo in la dilo intuu gabadha badbaadinayana gacanta ayaa lagu dhigay asaga haddana Shishiyon wuxuu la tartamaya Kishin asagoo u sheegaya inuu la dagaalamayo laakiin Kishin hadda kaliya wuxuu doonaya inuu meesha ka soo badbaadiyo saaxiibadii Keru markaana wuxuu iska diiday inuu la dagaalo ninkan isla markiina Shishiyon iyo raggiisa waxay bilaabeen inay soo aadaan dhankiisa sidoo kalena waxay bilaabeen inay garaacaan Kishin isla markiina dagaal xoogan ayaa meesha ka bilowday dagaalkaana wuxuu noqday mid adag oo aan kala joogsi lahayn dhinaca kalena askarta Shishiyon hadda waxay badda ku tuureen Kishin saaxiibadii asaguna markuu arrintaa arkay wuxuu joojiyay dagaalka sidoo kalena wuxuu ku booday badda si uu u soo badbaadiyo Keru laakiin intuusan soo badbaadin ka hor duufaan xoogan ayaa meeshan ka dhacday muddo kadib ayuuna muuqaalkeena u wareegayaa markaana waxaa la tusayaa saaxiibkii Kishin oo hadda garabka ku sida asaga kadib markay baddu hadda soo tuftay Kishin siisanka kale ee filimkeena ayaana lagu dhamaystiri doonaa sheekadan haddii aad nala soo gaartay dhamaadka muuqaalkan fadlan muuqaalkeena like saar sidoo kalena channelkeena ku soo biiro subscribe waa ku mahadsantahay la joogistaada